diinta islaamka in lagu faano diinta islaamka sharaf iyo cizi in laga dalbo waayo ciziga iyo sharafta waxa bixiya Alle subhanahu wa ta'ala ayaa bixiya isaga ayaa ciduu doonana sharfa Alle subhanahu wa ta'ala cidda uu doonana isaga ayaa duleeya sida uu kitaabkiisa inoogu cadeeyay man kana yuriidu al-'izza falillahi al-'izzatu jamii'a qofka doonaya cizza iyo sharaf doonaya cizzada iyo sharafta Allah ya subhanahu wa ta'ala wuxuu Alle subhanahu wa ta'ala ka hadlay dadka munaafiqiinta ee doonaya dadyowga gaalada ah islaam bay soo eekaysiinayaan hoostana gaallimay ku haystaan markay gaalada u tagaana waxay leeyihiin idinkaanu maciinana oo waynu iswaafaqsannahay isku diinna waynu nahay muslimiintana waa dhaleecaynayaan markay muslimka u yimaadaanna islaam bay sheeganayaan gaaladay ka dayayaan jacayl iyo dhawaansho ka dayayaan Alle subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waa kula yaab ayabtaguuna cindahum al-'izza magaalay sharaf ka dayayaan magaalay doonayaan magac iyo maamuus iyo sharaf inay ka helaan fa inna al-'izzata lillahi jamii'a ciziga iyo sharafta dhabta ilaahay baa haya ilaahay baa bixiya waxa looga jeedaa macnuhu u dhacaya sida ibn kathir rahimahullahu ta'ala uu tilmaamayo anna al-'izzata hiya al-iltizam bi ta'ati allahi jalla wa ala ciziga iyo sharafta dhabta ah waa illa haysta kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala waa illa ateeco sharciga Alle subhanahu wa ta'ala loo hogaansamo cizigu yada ayuu ku sugan yahay sida Alle subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qiluun fihi sharafukum afala ta'qiluun waxaanu idiin soo dejinay kitaab ay ku sugan tahay haddii aad qaadataan cizigiina iyo sharaftiina uu ku sugan yahay idan waxaa xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana oo sunnada Alle subhanahu wa ta'ala ee kowniga laga ogaaday horena loo tijaabiyey Allana subhanahu wa ta'ala inoogu yeedhay inoogu gubaabiyey in sharafta iyo cizigu uu ku sugan yahay kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala in la qabsado sharciga Alle subhanahu wa ta'ala in la dhaqan galiyo qofba intuu sharciga u dhow yahay buu sharaftiisu ku sugan tahay inta aad diinta Alle subhanahu wa ta'ala iyo dhaqan galinteeda aad ka fog tahay ayaa dulligaagu ku sugan yahay al-Xasan al-Basri oo taabiciintii waaweynaa ka mida waxa uu yidhi fa innahum isagoo ka hadlaya dadka cusaadee dambiilayaasha ah ee gaboodfalka sameeyey ee muslimiinta ka mida ka gaaloobayna waa ka sii xag jira wuxuu yidhi fa innahum wa in taqtaqat bihim al-bighaal wa hamlajat bihim al-baraadin fa inna dhulla al-ma'siyati fi riqabihim aba Allahu illa an yudhilla man 'asaa gaadiid wanaagsan baa haba wataan oo gaadiida fiican ha fulaan waxa weeye macsiyada iyo dambiga dulligiisa qulubtooda iyo raqabadooda ku sugan allana waa diiday qofkii caasiyay inuu dulleeyo mooyaane wax kale waa diiday Alle subhanahu wa ta'ala cizigeena iyo sharafteenu islaamnimadeena ku jirtaa sida awgeed baa layna faray gaalada inaynu ka soocnaano sida wax u cunayaan sida wax u cabayaan sida wax u kala iibsanayaan sida isu maamulayaan labiskoodu sida uu yahay sida ay u macaamilayaan qaacidada sharcigeena la inoo dajiyay wax kasto gaalada gaar u ah astaan iyo calaamad u ah muslimku inuu ka fogaado oo waxa weeye ka socnaada la inoo jideeyay